waxaan qiyaasayaa in madaxweynaha uu khalad weyn galay inuu mahadsalad hay-addaas u dhiibay baaritaan fara badan inuu ku sameeyana ahayd hay-addaas kale qofka loo dhiibayana waa la baaraa backgroundkiisa la baaraa aqoontiisa la baaraa shakhsiyadiisa la baaraa xataa hadduu saaxiibka yahay dad kala duwanna waa kala tashtaa aniga markaan maqlay inuu madaxweynuhu ka fikirayo mahadsalad fariin baan u faray warbixin baan u gudbiyey qof ay saaxiibo yihiin baan ugu faray warbixintana waa la gaarsiiyey laakiin waan ka naxay markii aan maqlay in ninkaas loo magacaabay aad baan uga naxay runtii maxay sabab mahadsalad dadka Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed dhibaatooyin aad u waaweyn buu u geystay niisa institutionka niisa la yiraahdo sida ay u dhisan tahay khataraha ugu waaweyn ay ka hortagto argagixisada gaar ahaan al-shabaab mahadsaladna xiriir weyn buu leeyahay muddo dheer oo 8 sano 10 sano ku dhow xiriir wada shaqeyn uu leeyahay xiriir wuxuu leeyahay shaqaale uu yahay wada shaqeyn xataa ma shaqaale uu yahay wuxuuna ka mid yahay dad aan xogtooda haynay oo markastana khatarahooda aan ka hortagi jirnay qaarna annagoo ka hortagayna ayna dhaafi jireen kareemyo waaweynna dalkan uu ka sameeyey waxaana diyaar u ahay ummadda Soomaaliyeed meel kasta iyo goob kasta inaan u sheego waxaan rabaa inaan kuu sheego sargaalka nabad sugidda Soomaaliya ka tirsan ee sir qaran la wadaaga taliyaha cusub ee la magacaabay waa qof sirtii qaranka u dhiibaya qofkii laga ilaalinayo Fahad Yaasiin eed weyn ayaa jeedinaysaa eedaas mar ka mid ah mararka adaa lagu jeedin jiray maanta hay'adii banaanka ka joogta dawladda banaanka ka joogta isla eedii oo kala jeedinaysaa raiiska dhiciso ma farqi yar baa jira marka dadka aniga ii jeedin jiray sirdoonka may soo shaqeeyeen dad waxay ahayn siyaasiyiin banaanka iska taagan madaxweynayaal ku jiray taliyaal hore sirdoon ku jiray madaxweynayaal may oran magaceygana may sheegin laakiin dad sirdoon ka soo shaqeeyo madax ka soo noqday aniga ima eedeyn dad siyaasiyiin magaalada iska jooga eedeynay laakiin aniga faylal aan la dhaqmay oo aan la macaamalay oo gacanta ku hayay oo ka shaqeeyay oo resultigooda aqaano way waxaan ku sheegaa hal iyo labo ma ahan ilaa 6 baan ku sheegi karaa fadal soo dhaw ilaa 6 baan ku sheegi karaa laakiin anaa weyn ahaan baan ku sheegayaa sababtoo hay'adii khusaysa tafaasiisha la siin karaa adigu wariyata inta ka khusaysan baan ku sheegi karaa wada shaqeyn marka tiraahdo wada shaqeyn ma shaqaale u yahay shaqaale marka tiraahdo waa eedayn culus taliyana wada sugid oo u shaqeynay koox hargeyso wax sahlan ma waa maxay waxa ka wada shaqeynaysa waxaan rabaa inaan background ku siiyo shabaab dad fara badan oo Soomaaliya bay qaar cabsiin ku shaqaalaysiistaan qaarna dhaqaale ku shaqaalaysiistaan baabuurta qaraxyada magaalada la soo galiyo dad baa soo galiya shabaab ma aha nin indhala oo iska socda ma dadkaas indhala oo iska socdo oo meel isaga dhufanaya ma dad baa caawiya facilitation ka u sameeya dadkaas caawiya u shaqeeyo inuu ka mid yahay waxyaabo waaweyn dalkan uu ka geystay oo xasaanadu ku gabanayay qaarkoodna anaga waa ka hortageynay qaarkoodna waxaan la suganaynaa waqti lagu la xisaabtami karo waqtiga lagu la xisaabtami karo maanta jooga oo san xildhibaan ahayn waxa ii sheegtaa waxa waaweyn iyo wada shaqeynta heerka gaartay shaqaalanimada heerka gaartay aad ku eedeynaysid anaga ma hayno sarunteeda iyo xaqadeeda ay ma hayn kartid adiga ii sheegay waa maxay kiisaskaas dadka Soomaaliyeed la wadaag waa badan yihiin laakiin waxaan ku sheegayaa mid qof kamid ah hadda uu nool yahay oo joogo caafimaad qabo ra'iisul wasaarayaashii dalka soo maray mid kamid ah inuu dilo isku dayay magacyada al-shabaab ay isticmaalayaan waxaan aniga xogta markaan helay ra'iisul wasaaraha saan wacay mahadsalad iyo qof la socda ma ku imaanayaan ha qaabili baan ku yiri farqiga u dhaxeeya 25 daqiiqo ahayd 25 daqiiqo oo aniga aan soo dhaxgalay baan ku noolaaday waa kee ra'iisul wasaaraha marra magaciisa inaan sheegay laakiin madaxda qaranku ka mid noqday hay'adda joogta xilligaad xogtan ogaatay hay'addan joog mar waxaa jirtay labada aqal ee baarlamaanka iskool booliisiya shir loogu qabanayo taariikhda madaxweynuhu uu furiyay taariikhda hadda exactly waa la raadin karaa laakiin labada aqal loogu shiray loogu qabanayo waxa loogu qabanayo iskool booliisiya wuxuu qorsheeyay oo al-shabaab kala shaqeeyay oo mahad karatay oo ninku u shaqeeya ah uu kala shaqeeyay meeshaas in laba baabuur la soo geliyo oo dadkii meesha madaxda qaranka ah timid qarax loogu soo geliyo way nool yihiin tafaasiisha ma siinin laakiin gudoomiye Cabdi Xaashi telefoon baan u diray waxaan ku yiri barrito shirkaas hal la baajiyo sabab amni darteed
gudoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal baan telefoon u diray waxaan ku yiri barita shirkaas hal la baajiyo sabab amni darteed madaxweynahana saasoo kale aan ugu sheegay markii madaxweynaha tafaasiisha oo dhan baan siiyey laakiin labada gudoomiye oo kale waxaan u sheegay sabab amni darro oo argagixisadu maleegayso inay qayb ka tahay mala joojiyay shirkasi lagu baajiyay goobtiisii la bedelay markii dambana wuu baaqday iyo in la qabtay hadda ma xusuusta laakiin goobtii iskool booliisiyo lagu qaban lahaa waa la kansalay wixii aniga ii muhiimsanaana goobta in la kansalay ahayd isagaana abaabuliyey taliyihii niisa nin la yidhaahdo qoojayare oo dhusmareeb banaankeeda lagu dilay mahad salaada qorsheeyey asagaana dilay niisa taliyihii niisa ee joogay meesha la yidhaahdo dhusmareeb qoojayara la yidhaahdaa nin dhalinyaro ah oo caqli badan oo degan oo qiimo lu ahaa gaalkacyo qarax baa ka dhacay isagaa fuliyey oo ka shaqeeyey oo taliyihii ciidanka militariga qaybtaas madaxda ka ahaa isna qoojaa la oran jiray iyo laba sargaal oo sarsaro oo ciidamada militariga Soomaaliya ka tirsanaa waxaan loogu talagalay xafladda markii la baxo wax allaali wixii ku jiro dhan inay dhintaan oo meesha ku qarxay qarax saxay ka dhacay gaalkacyo ka dhacay taliye qooja ku dhintaan ku dhacay taliye ciidanka militariga haystay laba taliye oo sarana waa ku dhintaan oo taliye danab waxa ula jeedaa qaraxii ra'iisul wasaaraha markuu gaalkacyo booqanayay ee dhacay galab meel barxadaas oo dadka kula hadli rabo waxaan loogu talagalay shirkaas oo dhan in lagu carqaladeeyo dad Soomaaliyeed oo fara badanna meesha ku dhintaan asaga abaabulay asagana ka dambeeyay waana xaqiiqo marqaati iyo cadeyn iyo cid la ogeyd iyo cid kasto kamid ah tafaasiishadan aan sheegi karno magaalada Muqdisho hoobiyaal fara badan lagu soo ridi jiray hoobiyaasha asaga gadi jiray asaga isku duba ridi jiray beesha laga soo ridaana asaga soo ridi jiray waxa intaas ka yaab badan baan ku sheegayaa wuu ogaa in anaga ognahay laakiin wuxuu ku gaban jiray xasaanadu haysto xildhibaanimada ahayd nasiib darro iyo calool xumo iyo dhibaato ku tahay in hay'adda nabad sugidda qaranka nin amniga dalka khatar ku ah inta loo dhiibo madax looga dhigo waxaan u maleynayaa in lagu sifeyn karo fadeexadii qarni ka dhacdanayta ma dhamaysatay kiisaski intaan hadda u muhiimsanaa waa kuu sheegay waxaan ku diinaa fahad waxaan markay dhacayeen ama xogtan aad helaysa niisa joogtay qaybo kamid ah sabab qaarna ma joogin madaxweyne xasan sheekh xilligiisii hore waa tii la soo weeraray madaxtooyada mahad baa qayb ka ahaa intaad joogtay aan eegno wada shaqayntan aad shaqaalaha iyo wada shaqayntan aad sheegaysa ee maanta mahad ku eedeynayso hay'adda nabad sugidda qaranka haysatay taliyihii ugu sarreeyay ahayd dawladda Soomaaliyeed ee dhisnayd waa xildhibaan baarlamaanka ka tirsan maxay xogtiisa loo sheegi waa si sahal waxa la dhihi lahaa nin mucaaradaha la beegsanaya waana been sadis baa la dhihi lahaa wixii dhihi lahaa wax kale lama soo kordhiyeen ma wixii dhihi lahaa waa wax kale laakiin cadaymaha ay niisa hayso inay soo bandhigto mahad oo aan maanta taliye nabad sugid ahayn oo xildhibaan baarlamaan ku jira ah oo mucaarada maxaa loo sheegay hadda xildhibaan lama maxkamadeyn karo maxkamadeyn kama xogta in la sheego hadda xogta cidii khusaysaa loo sheegaa cid kasta looma sheego cidii khusaysaa loo sheegaya ra'iisul wasaare aan ku sheegay wuu ogyahay wax ka yaab badan baan ku sheegay ra'iisul wasaare maxamed xuseen Rooble markii la magacaabay xafiis koowaad oo booqday waxay ahayd niisa oo noo yimid waa sheekaysanay presentation u sameynay warbixinta hay'adda siinay kabacdi gaar baan ula fariistay dadka al-shabaabka ku xiran ee systemka dawladda ku jira qaarkood waliba meelo muhiim ah ku jira magacyadoodan u tiriyay ma salaad kamid baa dadka aan u sheegay arwakaas ra'iisul wasaare waxa dhoofaad ima sheegay dadka aan u sheegay uu tirsho ku jiro kaasoo madaxa gacanta saaray maanta markana kugu celinaya adoo banaanka jooga eedaynta aad hadda jeedinaysid fahadow soo kama wanaagsaneyn adoo niisa ka ah agaasime ama dawladda ka tirsan in niisa ay macluumaad ka baahiso xogta baahiso si maanta ay markhaati u noqoto maalintaas oo lama awood annaga waxaan ka fikiraynay dadka Soomaaliyeed inta aan xakameyn karin amniga inaan xakameyno khatartan ka weyn ma garan khatar ka weyn baa dhici lahaa aan celinayba ma khatartan ka weyn qaar waxaan garanayaa khatar ka weyn sameyn lahaa oon qabanay oon xakameynay oon joojinay laakiin aan diinay dadku inay magaalada kala cararaan tan labaad qofka markaad xogta ka gudbinayso waa inaad tallaabo ka qaadi karto ninka waxa xildhibaan tallaabo kama qaadi kartid laakiin hadda waxaan la suganaynaa inuu yimaado meel lagu la xisaabtami karo hadda waa qof caadi ah oo agaasimo ah
waa lala xisaabtami karaa waa agaasimaha nabad sugidda waa lala xisaabtami karaa xasaanad male agaasimaha nabad sugidda eedda aad sheegaysid waa eedo waaweyn taliya nabad sugid oo dal xukumaya disaster shaqaale saas oo kale in loo dhiibo hay-adda nabad sugidda 3 shay qof calaaqa leh waa laga ilaaliyaa qof korruptida waa laga ilaaliyaa qof dal shisheeye la shaqeeyna waa laga ilaaliyaa qof wixii ay hay-addu la diriireysay xiriir lalana waa laga ilaaliyaa madaxweyne xasan sheekh waxaa ku habboonayd ragga kale oo saaxiibada leeyahay ee 3daas sifa midna aan calaaqa lahayn inuu u dhiibto rag fara badan oo wanaagsan oo qaban kara shaqadaasuna saaxiib leeyahay